بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa warsan TV qodobada idin hayo waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo iibinaysa 30 tan oo kalluun ah oo lagu qabtay shirkad ajnabi ah. Soomaaliya oo ka heshay 65,000 badeecadaha loo dhoofiyo Ruushka sanadkii 2021 iyo faahfaahin laga helay dil argagax leh oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo wali ay dadku hadalhayaan. ku bilowna war dheeraad ah ayaa laga helayaa dil goor sii horeysay oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kaas oo kooxo burcad ah ay u geysteen gabar dhalinyaro ah. dilkan oo ka dhacay xaafadda Jungle ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa waxay kooxda burcad ah u geysteen gabar dhalinyaro ah oo ka mid ah shaqaalaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Naciima Cabdiraxmaan ayaa waxa ay kalkaaliso ka ahayd isbitaalka Madiina ee dawladda ay gacanta ku hayso. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in gabadha kalkaalisada ahayd loo dilay telefoon ay wadatay kadib markii ay isku dejisay taasi oo keentay in kooxaha burcadda ay si xoog ah ugu qaataan isla markaana ay xabado la dhacaan sida ay sheegeen dad halka ka agdhawa. kooxda dilka geysatay oo la sheegay inay wateen moodo bajaaj ayaa markiiba isaga baxsaday goobta iyadoo halkaasi ay gaareen ciidamada ammaanka. ciidamada ayaa bilaabay baaritaan la xiriirta dilkan iyadoo olaamaha ammaanku ay sheegeen inay ku raad joogaan burcadii geysatay dilkan. dilka maanta ka dhacay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ee loo geystay gabadhan dhalinyarada ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyay ammaanka magaalada Muqdisho uu soo hagaagayay kadib markii ammaanka caasimadda lagu wareejiyay ciidamo gaar ah oo dhawaan tababar ku soo qaatay dalka dibadiisa. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta sheegtay in ay iibinayso 30 tan oo kalluunka ah kaas oo kalluumaysato ajaanib ah ay sifa sharci darro ay uga soo baxeen badda Soomaaliya. qoraalka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in kalluunka laga iibinayo shirkadaha Soomaaliyeed ee ka ganacsada kalluunka ee ku sugan magaalada Muqdisho. maxkamaddu waxay xustay in noocyada kalluunkan ay iibinayso ay yihiin noocyada loo yaqaan white tuna iyo sidoo kale damberi. xafiiska xeer ilaaliyaha Soomaaliya ayaa maalin ka hor sheegay in 36 eedeysane oo ajaanib ah maxkamadda la horgeeyay kuwaas oo ku eedeysan in ay kalluumaysi sharci darro ah ay ka wadeen badda Soomaaliya. ciidanka badda ayaa kalluumaysatadan ku qabtay 30 tan oo kalluun ah waxaana lagala wareegay kalluunka iyo sidoo kale doomihii ay ku jilaabanayeen iyaga oo loo gudbiyay xabsiga. wasaaradda kalluumaysiga ayaa hore u sheegtay in doonyo kalluumaysi oo laga keenay dalalka shisheeye ay si sharci darro ah ugu kalluumaystaan badda Soomaaliya. ugu dambeyntii Soomaaliya ayaa Ruushka u dhoofisay badeecooyin qiimahoodu uu dhan yahay 65,000 oo kaliya sanadkii 2021 marka la barbar dhigo 10.8 milyan oo dollar oo uu ka helay dhoofinta Ruushka ee Soomaaliya sida lagu sheegay warbixin ay daabacday wakaaladda wararka Interfax ee dalka Ruushka. dhoofinta Soomaaliya ee Ruushka ayaa ka koobnayd 60 oo kaliya sida warbaahinta lagu sheegay. wax soo saarka beeraha ee Ruushka u dhoofiya Soomaaliya waxa ay dhan yihiin 36,000 oo tan oo qiimaheedu uu dhan yahay 10.8 milyan sanadkii 2021 halka sanadkii 2020 la dhoofiyay 29,800 oo tan oo qiimahoodu uu gaarayo 6.5 milyan oo dollar. warbixintu waxay taasi ku dartay in wax soo saarka Ruushka ee Soomaaliya uu yahay 30 milyan oo dollar sanadkii.